بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة قيمة بدنو كسودو جامعة إبراهيم البلوي مقال كان waxaad ku bari doontaa 5 farsamo oo cajiib ah oo ku saabsan habadaysiga YouTube-ka bal iga tirso 5taas qodob 1 commentiga aad bixinayso qoraalkiisa weyn aad ka dhigi kartaa yacni bal si dadka kale aad ugu soconaato commentigaaga 2 waqtiga muuqaalka oo loo yaqaano time stamped muuqaal YouTube ka aad ka daawanayso meel ka mid ah waad calaamadaysan kartaa hadhow markaad ku soo laabato isla meeshii aad ka bilaabanaysaa 3 muuqaal aad daawanayso haddii shucaac ku jiro ama aadan si fiican ugu jeedin waad ka saari kartaa shucaaca 4 waad badin kartaa ama waad yaray kartaa xawaaraha muuqaalka aad daawanayso 5 double tap to see ku soo cesho qayb ka mid ah muuqaalka ama ka bood qayb ka mid ah muuqaalka si fudud waxaan rabaa farta commentiga markaan bixinayo inaan weyn ka dhigayaa rabaa tusaale ahaan YouTube-ka aan tagayaa muuqaalkayga mid ka mid ah ayaan rabaa commentiga inaan ka bixiyo oo weyn ka dhigo tusaale ahaan muuqaalkan aan u baahanahay comment inaan ka bixiyo commentiyada caadiga waa sidaan laakiinse waxaan rabaa commentiga inaan bold ka dhigo farta weyn ka dhigo intaan qorin koor waxaan qorayaa xidig kadibna commentiga ayaan qorayaa tusaale ahaan thanks for sharing kadibna xidig ayaan ku xirayaa kadib send ayaan leeyahay isbiis ayaa u dhexaysiyey isbiiskaas aan ka bixinayaa idhidaa leeyahay halkaa meesha ugu dambayso ayaan xidigta saarayaa kadib send ayaan leeyahay waa kaas hadda waa isbedeshay thanks for sharing oo waxaa waaye weyna thanks a lot iyo midaan hadda farqiga u dhexeeya waa ujeedaa marka qodobka labaad waxaan ugu soo hadlnay time stamp waqtiga sida loo aad u calaamadaysanay tusaale ahaan fiiri haddeer waqtiga muuqaalku waa kan 1 saac iyo 5 daqiiqo markaan marayso waxaan ka hadlay Pixabay haddii aan ku dhufto stoosa Pixabay ayuu geynayaa waa kaas haddii aan daaro 5 daqiiqo 32 markuu maraa video haddii halkan ku dhufto Mixkit ayuu geynayaa waa kaas tani waa dadka YouTuberska ayaa gooni u tahay laakiinse dadka YouTuberska aan ahayn maxaa ku samaysanayaan tusaale ahaan waxaan rabaa in aan hadda calaamadaysto videoga markuu maraayo 5 daqiiqo bar halkaan waxaan ku qorayaa 5 daqiiqo 2 dhibic colon saa u taqaanidba kadibna 30 ayaan qorayaa halkaan ka daawo kadibna send ayaan leeyahay hadda fiiri 5 daqiiqo bar markuu maraayo muuqaalka halkaas ayuu geynayaa tusaale hadda halkaan geynayaa fiiri hadda 12 daqiiqo geey haddii ku dhufto 5 bar korkooda haddii aan ku dhufto waa kan 5 bar ayaa ii imaanaya muuqaalka hadhow sidaas ayaa dib ugu daawo karaa 3 waxaan rabaa muuqaalka inaan HD ka dhigaa rabaa hadda tusaale ahaan waxaa la sharxoyaa waxaas ayaan si fiican u arki waayay waxaan rabaa inaan HD aan ka dhigto oo aan si fiican si aan ugu arko 3 dhibic ayaan ku dhufanayaa kadibna quality ayaan ku dhufanayaa waa kan hadda waxaan ka dhigi karaa 720 pixel ee ugu sareyso muuqaalkan haddaan halkaas ka dhigto muuqaalka si fiican kaya ogowse haddii mobile data aad isticmaalayso MB-gaaga aad ayuu u oconayaa qodobka afraad oo ah speed waxaan rabaa muuqaalkan inaan boobsiiyo ama aan xawaariis tartiib aan ka dhigaa rabaa isla meeshii ku dhufo 3 dhibic kadibna ka dooro play speed hadda normal noo dooran kadibna waa kan haddii aad marka tartiib inaad u samayso dad u baahan tahay kuwan kor ku dhufinaysaa normal ka koreey haddii inaad boobsiis aad u baahan tahay kuwan hoos aad ku dhufinaysaa waxaa ugu sarreeya hadda 2x waa boobsiis muuqaalka fiir xawaariis soo soconayo
aad ayuu soconayaa oo boobsiinaya muuqaalka laakiin asalkiisaas ma ahan haddii saddexda dhibic aan ku dhufto oo aan doorto play speed 2x saxa noo saaran haddii marka 0.25x haddii aan doorto oo aan daaro muuqaalka tartiib ayuu soconayaa waa kaasa marka laakiinse markasta waxaa fiican normal qodobka shanaad double tap to seek tusaale ahaan muuqaalkan ayaa kuu daaran waxyaara ka boodi marka waxaa rabaa inaad soo celiso halkaan ha ka soo celinayn waxaa badanaa laga yaabaa inaad ka booddo halkaan muuqaalka markuu kuu daayan uusan yahay double click meeshaan ku siiy waa kan hadda gadaal waxaa u laabtay 20 second ayaa gadaal u laabtay haddii laakiin 2 mar click aan siiyo 10 second ayaan hor u baxayaa haddii 2 second 2 mar taabtana dhankan 10 second ayaa gadaal u baxayaa ku soo celo ama hor u bax laakiin haddii aad ka badan haddii aad u baahan tahay 10 second ka badan haddii inaad hal mar aad gudbido haddii aad u baahan tahay waxaad ku dhufinaysaa YouTube-kaaga settingkiisa saddex dhibic ku dhufo kadibna ka dooro setting kadibna ka dooro general halkan double tap to seek ku dhufo kadibna waa kan had 10 second aad boodaysi haddii 30 second aan doorto ama ka badan 60 second haddii aan doorto hal mar haddii aan double click siiyo muuqaalka 60 second ayuu boodayaa fiiri hadeer fiiri korkiisa hal mar jida 60 second ayuu boodiyay waa ku maasantahay daawashada daawatay muuqaalkan fadlan la wadaaga saabtaada kii laabin aan like noo saarto ayuu dhiirigelinaya noo tahay gabagabadii ayaa soo gaartay waxaan filayaa in muuqaalkan aad wax badan aad ka faa'iiday fadlan nagula wadaag qaybta hoose ee faallada ama commentiga adigoo isticmaalayo 5 qodob mid ka mid ah